Chief Aqil Maxamuud Chief Aqil Cali oo kamid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaaga oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay beertiisa magaalada Ceerigaabo ayaa ka hadlay shir dhawaan lagu dhawaaqay inuu ka dhici doono magaalada Bure xarunta gobolka Togdheer oo ay isugu iman doonaan laba beelood oo kamid ah beelaha dega Somaliland. Runtii oo soo dhaweynaya arrinta la isku khilaafay iyo arrin lagu kala beersan yahay ama lagu kala beersan yahay ama lagu kala aragti duwan yahay waa jiri karaan laakiin arrinkani waxa weeye suldaankii guud baa ku dhawaaqay ee beelaha habar jeclo oo martiqaad sameeyay suldaanka guud maadaama uu ku dhawaaqayna runtii waan soo dhaweynaynaa waa lagu khasbay in cid kasta oo habar jecel ay soo dhaweyso maadaama uu suldaankii guud ee reer uu shirka iclaamiyay وقول دقان إعلامي يقول شنو إن شاء الله وانا لتجيا وانا لقيت عشان يا السويدين يا يو وحي لا تجلها يوحي لقول هذا لها وسويدين والركبة كود هذا يا لكن شركوا اسكسوا ضدوه وتجيس وانا لتجيا إن شاء الله صدق أنا وتأكيدين إنه وتهجسنا هاي هذا الكاوي ده بديع ده هذا المسوحي هذا أنا وحوح حوي بركة فيوي وبركة فيل dhanka kale Chief Aqil Maxamuud Chief Aqil Cali ayaa warbaahintu weydiisay balada wuxuu shirkani kaga duwan yahay shirar hore Somaliland uga dhacay oo ka mid ah shirkii 1993 ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyo waliba shirkii ka qabsoomay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ashada haddaan soo noqdo shirku wuxuu kala duwan kii gacan libaax ma aha oo gacan libaax beel kaliya shiraysayo wax isweydiisayo hadii ay laba ku roon yahay marka cadaysnaydo hadii ay laba ku roon yahay dabuurta u baxday ka Boorame beelo badan uu soo shabaha kii Boorame oo beelo badan oo Somaliland ba halkaas ku turxan saarayay marka waxa oran karaa xagna ka Boorame waa kala mid yahay xagna kala mid aha mar waa laga aayaha Somaliland ba dib looga tashaday oo tii Cabdiraxmaan Tuur xilka laga qaaday maxamed xaji Ibrahim gaal keenay shirkaasi oo ayaha Somaliland wana loo arkay duruuftaas inuu munaasib ku ahay maanta se waxa weey laba beelood oo waaweyn oo Somaliland degan bas ugu imanaya Burco runtii waxa laga tashanayaa waxa weey waa arrimaha nabadgelyada horumarka iyo hadii ay laba ku roon yahay muddana waa ka harsan tahay hadda dawladdu sida ay ka yeesho oo aqbasho oo soo dhaweyso oo waxyaabaha shirkan keenay beelaha kalifay kolba wuxuun baa kalifay waxa kalifay dawladdu ilaa ay fahanto marka ay fahanto wax ka qabatana waa alxamdulillah waxba inoo hagaagaya haddii waxba ka qaban weydana waa rab caalamiin oo wixii ka soo baxay inuu yeey Somaliland 10 sano u dambeeyay waxa ku soo badanaya shirarka ay qabsanayaan beelaha dega Somaliland Cabdiraxmaan Cadaani telefishinka Somali News magaalada Ceerigaabo